dhagihii iyo indhihii araggii maqalka in lagu dheeyo aad bay u adag tahay. dadkii iyo ogolaaday ayaa tihiin, aad ayaa u mahadsantihiin. waa mahadsantihiin, ka badan ayaa iga mudan tihiin. سكسك وحير واحد مبارك، رمضان مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان إذنكو سلامي يا سلامة إسلامك أصحابتي إذنكو حيران كانت كسعودالك الدنيا. وحان إذن هاي نحريست إلهي دوشينا ها أهاتو. وحان لوجرا بشي رمضان وليبا طبعا كده نحريست إلهي دوشينا ها أهاتو. وحان رجينا إنا صفي عن رمضان لما يسدونتان sidoo kaleetana aad si qurux badan u ciidi doontaan markii uu ramadaan dhamaado haddii uu ilaahay yiraahdo. maanta waxaan u soo fadhiistay inaan information idinka siiyo sababtii channelkan aan u furay, halka ku marayaa, maxaan ka rajeynayaa markii aan bilaabiyo ujeedadii aan u furay, ujeedkii ma ku socdaa mase waa ka leexday midda inaynu idin faahfaahiyo. ujeedka aan u furay kanaalkan socdaalka dunida ah waxa weeye in aan isku weedaarsano muuqaalo tayo leh, diini ah, oo waxtar leh, oo dadkii waxtarayo muuqaal ahaana wanaagsan. sidoo kaleeto ereyga socdaalka dunida ah waxaan ugu talagalay dunidan socota ee hadba maalinba meel taagan inaan la socono, la jaan qaadno, ee maaragta aanan ka harin maadaama waana arday teknolojiyadda soo bartay inaa macnaha dhanka teknolojiyadana aan maaragtay muuqaalo ah inaan ku wadaagno. haddaba wadadii wuu oohayaa. sidoo kaleeto waxaa aragteen muuqaalo diini ah, ambiyada laga hadlayo, saxaabadii, sidoo kaleeto muuqaalo teknolojiyadda ka hadlayo. haddii ay ahaato dhacdo diini ah ee markaas taagan sidii sheekh kenyaawi oo muqdisho imaaday, nabiyullaahi yuusuf qisadiisii aad daawateen, saxaabo badan aad ka daawateen muuqaalka, waa asxaabta ku xiran. haddii aadan ku xirnayna waxaan leeyahay adigana ku xirmo, kusoo dhawow kanaalka socdaalka dunida. xaqiiqdii social media waa lagu soo wadayaa, qof walba macnaha intii karaankiisa oo soo galay. qofkii macnaha Facebook awood u hayo Facebook ku jira, qofkii Instagram iyo Facebook iyo WhatsApp iyo intaa aba karaan u hayo imo wuu ku jira. qofkii awood u hayo inuu YouTube soo dhaximaado YouTube ku dhaximaado. haddaba marka qof walba macnaha sida uu bulshada ku dhax ahaa oo yacni dariskiisa iyo xaafadaha ku aaraysan soo dhax ahaa buu ku dhax aanaya social media. haddaad dariskaaga dhib ku haysid social mediahana dhibaa ku dhaxaynaya. haddii maaragta dariskaaga kugu faraxsanaayeen oo nin wanaagsan ama gabar wanaagsan ee kuu ahaayeen, sidii baa ku dhax aanaysaa social mediahina, oo bulshadii ku daawanaysan sidii baa ku ahaanaysaa, ama qoraaladaada akhrinaysa ama sawiradaada arkaysa. haddaba maanta aniga waxaan idiin soo hor istaagay weji ka duwan wejigii hore, oo ah wejiga hore wuxuu ahaa inaan sawiro iyo wax idiin soo edit gareeyo, codkayga aan idiin soo saaro. balse maanta wejigayga ayaan idin hor keenay si maaragtay aan idinkaga mahadceliyo daawashadiina, la xiriirkiina, dadka ilaa iyo nambaro akal qaadan ee soo xiriiriyay oo barta ee inuu kulmaysana ay tahay YouTube-ka. waxaan idin leeyahay mahadsanidin dadka ku xiran, dadka daawada dhammaantiinba mahadsanidin. sax hore waan isku aragnay oo maran vlogyo duuwaayay oo maaragtay Daarusalaam, mar garoonka Stadio Banaadir, mar Jazeera. Stadio Banaadir waa markaa in badan baa la daawaday sheekh kenyaawi muuqaalkaa kasoo duubo vlogga, allah xafidee. haddaba waxaa maanta u soo fadhiistay waxay tahay inaan idin dardaarmo oo maaragtay qofki ku jiro inuu wanaag kula jiro, qofkii doonayo inuu kusoo biiro bartaan ee YouTube-ka inuu wanaag kula soo biiro. sababtoo ah waxaan xasuustaa hadda ka hor anigoo class 7 macallin noo dhigayay fasalka 7 ama 7 anigoo waxaan xasuustaa macallin noo dhigaya luqadda carabiga inuu noo keenay mobile ee dhahayeen music player ee halahan la experta 3 farood isku qabtay. wuxuu yiri telefoonkan dadkii soo saaray waan xasuustaa walaa adiga 9 sano camal 8 sano meelaha ka soo wareegtay. wuxuu yiri telefoonkan dadkii soo saaray waxay ugu talagaleen
inaan music ku dhageysano, balse anaga waxaan u adeegsanaynaa taa mid ka gedisan oo macnaha waqtigaas wuxuu nooga daaray xiwaar oo maaragtay luqada carabiga ah. xiwaarka macnaha buugga wuxuu ahaa buug caadiya, marka waxaa la socday adiga waqta xilweyga iyo inaad wada aragteen filaa dad Englishkooda xiran bay dadkii hadeerta maqleen waxaa ku xiran CD Soomaali buugga CD-giisa buu ahaa oo ka soo saaray macnaha codkii baa macnaha mobilkii lagu soo geliyay oo nooga daaray xilligaa waxay ahayd macnaha xilli uu ku yiriyaa telefoonadan smartphone-kan iyo waxaas ma jirin. xilli hore bay ahayd 310 iyo waxaa baa jiray telefoona niica. marka hadda waxaan kaga gol leeyahay YouTube wixii lagu soo saaray waa la wada ogyahay, bal aan u adeegsano wanaaga iyo khayrka iyo waxa wanaagsan ayaan u adeegsan sababtii loo soo saaray oo xumaan ah. xaqiiqdii bartaan waa la wada joogaa, qof walba macnaha qof buu ka helaa oo daawadaa. taajira jira Soomaaliya wax la yiraahdo, aniga xaqiiqdii waxaa jira dad aan aad uga helo ma arag horta wax hore u sheegay hebelan jecla hebelan macnaha ku xiranahay dad YouTube ka dhaxdhaha qof ku xiran oo dhahay, laakiin aniga dhahayo shakhsiyaadka xusi kara waxaa kamid ah saaxiibkay ama walaalkay Ayub Yusuf Sakin oo ay ku qoran tahay Ayub Yusuf Sakin. waa nin dadka dhiirigeliyo mushjaca dadka inuu dareenkooda bedelo, waxa ku abuuran inuu bedelo. in badan ayuu bedelo, in badan ayuu moraalkeyga dhisay oo kor iga qaaday. sidoo kale waxaa kamid ah Ogle Cabdicasiis Ogle aan ku xiranahay oo soo geliyo fiidiyo diini ah oo waxtar leh, ambiyada saxaabada qisooyinka diiniga soo geliyo. xaqiiqdii aad ayaan uga helaa muuqaalada dhiirigelinta ah ee dadka lagu dhiirigelinayo. muuqaal aan ku bedelanayo ma jiro, taad waxaan akhrisanayay don't be sad, la tahzan, hamurugoonin. waa buug aad iyo aad u nidaamsan, qormadiisa ugu badanna waaba quraan. daliiladiisa bal ka waran marka lagugu dhiirigelinayo, marka lagu leeyahay aayaad qur'aan ah hamurgoonin, iyo marka hadal iska caadiyo hadal bil aadan oo ku leeyahay hamurgoonin, aad bay u kala duwan tahay. Soomaaliya qadarta baa lagu qancinayaa. asking Allah forgiveness opens locked doors. waa buug cajiib ah xaqiiqdii. haddaad fursad u heli kartid isku day inaad akhriso, isku day inaad fursad u hesho. don't be sad. sidoo kaleeto waxaa kamid ah walaalkay arrimaheena ninka yiraahdaan oo asigana ah qof aan ku xiranahay xaqiiqdii aan ka bartay qaybo kamid ah video editingka, farsameynta fiidiyoyada. waxaan leeyahay mahadsanid iyo dhammaantood ayaan baleeyaa mahadsanidin. sidoo kale way jiraan dad aan jeclahay oo aan ku xiranahay, laakiin saddexda qof ayaa mudnaan iga mudan inaan ka dhex dhaho isla YouTube. waa mahadsantiin inaan ka dhex kuwa mahadcelintooda kadib waxaan u mahadcelinayaa adiga i daawanayo, adiga igu xiran, adiga i subscribe gareystay, adiga iga filanayo video inaan kuu soo dhigo. xaqiiqdii waxaa tihiin dadkii igu dhiirigeliyay inaan video farsameeyo kadib soo dhigo. aniga hobbigayga waayo, waa waxaan ka helo inaan video farsameeyo. dhagihii iyo indhihii araggii maqalka in lagu dheeyo aad bay u adagtahay. dadkii ii ogolaaday ayaa tihiin, aad ayaa u mahadsantihiin. waa mahadsantiin ka badan ayaa iga mudan tihiin. dadka hobbigayga ii suurageliya ayaa tihiin. haddii aanan adinka daawo lahayn video ma farsameeyeen ma soo dhigeen, niyadeyda saan muu dhisnaateen maanta. waynu wada socon doonaa. waxaan rajaynayaa videos kaleeto tayo leh
wax kaa bedeli doono, wax kugu soo kordhi doono biidnillaahi alculaa. sidaa ayayna inoo ahaanaysaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.